السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax loo yaqaano Binance OCO iyo see loo isticmaalaa. Kaasoo dad badan oo saaxiibadey iga soo codsadeen. Coinkaas baan doortay. Halkaasaan ka xushay. Wata halkaas ii soo galay. Then waxaan rabaa inaan nambaradan ku qorqoro halkan. Coinka imika wuxuu joogaa 83.50. Cardano wuxuu joogaa 83.50. waxaan rabaa inaan balbayga aan ku cabiro. waxaan rabaa markuu gaaro ka soo qaad markuu gaaro 82.14 inaan iibsado 82.14 stop limitkeygana waxaan ka dhiganayaa inuu imika wuxuu joogaa 83.55 so 84 baan ka dhiganayaa stop limitkeyga. kalena waxaan ka dhigayaa 84.89. saddexdaa nambar I hope ina kala fahmay. waxa weeye hadduu suuqu hoos soo dhaco uu yimaado 82.14 baan iibsanayaa. haddii laakiin suuqu uu meesha uu joogo uu kor ka sii aadana igama fakanayo aniga oo waxaan rabaa inaan ku iibsado. nambarka kalena maxaa uga weyn? nambarka kale uga weynaysa waxa weeye si uu mashiinku u gafin oo u qabto baad uga yara weynaynaysaa maadaama aad wax iibsanayso suuquna cararayo. ka soo qaad suuqa xoolaha baad timid ama se xaafadaada caanaha lagu iibinayo. dadkii qofka caanaha gadaayay wuxuu gadayaa litirkii caanaha ahay 1,000 shilin. 10 qof baad timid 5 litir bis ayaa lacaano. markaasaa mid wuxuu yidhi anaa waxaan bixinaa 1,500. marka qofkii caanaha gaday waxa laga yaabaa inuu ka iibiyo qofkii ugu qiimaha sarreeyey si marka uu suuq kaaga fakan. ilaa suuqan waxaa laga yaabaa inuu gaaro $1 iyo bar waxaas aaminsan tahay. waxaad leedahay anigu intaan u dhexaysaba markuu sii kacayaba iisii daf. so sababtaas waa sababta nambarka dambe loo weynaysiinayo. nambarkaana waa nambarka suuqa markuu kacay, kanna waa kan oo markuu suuqu soo dhaco ah. saddexdan nambar kaaba dhaqan galaya ama labadan oo iyagu isku xiran baa ku dhaqan galaya. ka kore waxa weeye hadduu suuqu dhaco oo de markaa cidiba iskuma dhibaysaba kaasaa kuu dafaya. haddii kalena waa kaas. OCO waxa weeye labada midood, one cancels the other. labada mid baa dhaqan galaya. dhinaca iibintuna waa sidaas oo kale. so waxaan rabaa inaan isaga iibiyo Cardano markuu gaaro $3. waa profit. lacagtaydii Cardanadii baan haystaa. markuu ii gaaro $3 ii iibi. stop losskana waxa weeye wuxuu ku cayminayaa suuqan hadduu daato kuguma sii daadanayo oo stop loss ka yara fogeysay. so intaas waxaad siinaysaa meel yar ku neefsado. hadda hoosta ka geliso stop losska waxaa laga yaabaa inuu kaa tuuro. so waxaan idhi 81.50 isagana nambarka waa ka sii yaraynaysaa maadaama suuqu uu xoogli kusii daadanayo. waxaa laga yaabaa inuu mashiinku ku iibin waayo dad kale ay kaa dafaan. sidaasaad marka u kala yara weynaynaysaa. OCO marka wax weyn ma ahan. waxa weeye labada mid ama kaaba dhaqan galaya oo faa'iidada suuqa qaadatay ama waa lagu caymiyey xoolahaagii waxba kaama baabeen. kanna waxa weeye wixii fakanay cidna kaama qaadan waa kuu gadmay amase suuqiyo meeshii aad ka rabtay buu kaaga iibiyey. waxaan filayaa in la fahmay cajaladdan iyo hadalkan meesha aan ku duubay. dad badan ay ka faa'iidi doonaan. suuqaana stop losska waa in dadku ay fahmaan qiimaha uu leeyahay iyo profit taking. haddii kale suuqan waxba kama helaysid oo aad ku khasaaraysaa. waa mahadsantihiin. fadlan haddii aad cajaladda ka heshay subscribe batanka subscribe garee si alarmkana taabso si mar kasta oo aan wax soo dhigno ay kugu soo dhacaan. annaguna aan kaaga mahadnaqno. suulkana noo taabo oo waxaad tiraahdaa shaqo wacan baa qabateen. waa aad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. ramadaan wanaagsan, ciid wanaagsan. dhammaan akhyaarta daawanaysa cajaladda waa idin wada salaamay.